الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وولاشين جواهر حسين هلكتنا قال سعتنا وشانل كانوا جواهر حسين إنه ما مشوا ما أنت وحا نور مسترع إن شاء الله قصدي شالي وقبيضة إنه هذا هدو إلهي سبحانه وتعالى رالي كالنقضة وحا إنه مريسي أبايو أو حبسي لجيي أو مر والبقف وسوق لايو waxay dhahday markay ugu yar tahay abaa waxa ay soo galeen ay dhahday 20 qof ay soo galeen marka aan dhibaatadaas ugu dhacdayna waxa uu sheegay abaayadii yarta ahayd oo guriga igu la nooleed u sheegay maanta dhibaatadaas ay ugu soo dhacday alxamdulillah iska badbaadiyay taban aniga iyo gabdhaha oo asxaabta aan nahay waxaan nadar ku galnay ama balan aan ku galnay haddii qof ay dhibaato ku dhacayso mise xadgudub la rabo in loo geysto inaan nafta u hurno nafteena inaan dhaafino in aan ka doorbidno in xadgudub lanagu sameyn lahaa marka waxay dhahday allah musta'aan waxaa jirto mar aan gaari iska tuuray dhahday bas aan iska tuuray baskaas oo ila baxsan rabay hurda ila tagtay hurdadii markay ila tagtay dadkii dhan way degeen marka aniga ku soo haray anigiina baska uu ila tagay markaan soo kacay waxay dhahday baski waan iska soo tuuray wuxuu arkay asigoo magaalada dhanba ka sii baxaayo baski dhan waa iska tuuray dhahday baski waa iska soo ordaya iska soo tuuray marka waxay dhahday waxaa jirto gabar kale oo asxaabta ee ayadana oo dabaq iska soo tuurtay oo lug ka jabtay ay jirto marka waxay dhahday balana ku galnay in waxna lagu sameyn lahaa in aan ka doorbidno in aan nafteena weyno marka abaayadaas uu sheegay dhahday maanta dhibkaas ay ugu soo dhacay maanta dhibka igu soo dhacay waxay dhahday xabsiga jooga waxa ii soo galaya qof maro ii soo gala warqada la iga qoraa waxa leeyahay haye بدر محو كوغو سمي بدر على الله محو كوغو سمي كورو غوريgiisa sa ugu shaqeynaysay alaabta ma qaadatay alaabta maxaa way qaatay 5 qori iyo hal bistoolad ani alaab ma qaadanaan dhahday hadii aan rabo tuug inaan noqdo hada meelahaas tuug ka noqon lahaayo oo shaqo ma wafuuli lahayn ba shaqo qadaamani maxaa i gelin lahaa ani xoolo islaameedna ma qaadan waxaasna meel yaalin waligay ma arkin laakiin nacam bedar wuxuu ahaa qof aad inoogu wanaagsan qof aad garab noo siiyo qof aad noo saacido dabcan wun saacidi jiray dhahday wad meesha hadda markaas aan ku noolnahayne shalay waxa idin dhahay sanci aheed maya waxay aheed cadan waaye sanac waa meeshay ka soo guureen oo qabowga badneed cadan jabigeeda waa jabiga Soomaaliya oo kale aniga waa tagay jabigeeda waa jabi Soomaaliya oo kale caadi waa jabigeeda waa iska degan yahay laakiin sida la ii sheegay sanca waa qabow ticisna aniga tagay waa qabow sida idin sheegay marka waxay dhahday hawaryar qabowgaas way soo heen way sidaas darteeda meeshaan u keenno waan ku qasbanaanay inaan shaqo raacno waayo markaas waxa loo baahan yahay lacag oo maalin walba daawadeeda iyo waxeeda loogu soo galo hawaryar caloosheeda banaankay taala gabadhiya marka u sheegtay waxay dhahday hawaryar miyaha heblaayo wixii loo watay waxa u maleynaa arrintaas ku soo dhacday inay sheegtay ama loo maleeyaa saas darteeda ama loo watay ama uu ka cabsanaa inay sheegto saas in loo wata u maleena marka hawaryar markuu saas dhahay iwaday dhahday caloosheeda faashay ku soo dhigsatay iwad meesha igey saldhigay ku xiran tahay igey waxay dhahday almuhim maxay radaasi waxay dhahday allah musta'aan saldhigaas igey saldhiga oo la geeyay igey marka allah musta'aan markay saas dhahday waxay dhahday anigeena waxa ii soo galaysa marba qof ay soo galay waxa la weydiina waxa la iga rabaa ereygaas inaan dhaho ama ereygaas inuu ku jiro al rabaa waxay dhahday markay ugu yartahay 20 qofood ay soo gashay warqadaana la iga qoraa warqadiina isku wada mid waay asigii waxa imaaday jaakeynaya imaaday warqadihii oo gacanta ku dhigay woo ii imaaday meesha isla meesha la igu xiray woo imaaday warqadihii oo fiiriyay warqadihii markuu fiiriyay saas intuu ii soo fiiriyay dhahday oo iga sii jeestay markuu iga sii jeestay isla ilaahay markaas waxa soo gashay habriira soo gashay habriir markay soo gashay asigoo meesha taagan habriir indhahay gacan dhuuftay gabadheeda inta dhibkaas u horseeday dhibkaas arabtay inuu ugu weysatid haddana waliba xabsi soo dhex dhigaysaa miya mujrimiyaho habriir meeshii caay ugu gashay markaas wuxuu dhahay wallahi waxa xanuunsan tahay ma xabsiga ku dhex dhigi lahaa haddana wuxuu dhahay gabadhan waaba sii deyn lahay calashaankaaga waxaan in maxkamad la saaro dil toogasho lagu xukumo aan ku tusinaa hawaryar meeshii ku soo caaytanta aniga la imaaday markaas waa hawaryartaada saasay dhooysaa maxaa ka jiro mayaan dhahday hawaryarteeda way xanuunsan tahay hawaryarteeda qof xanuunsan waa hawaryarteedu waxba ma ogo hawaryarteeda miya qofka oo dhibka maxay radaasi oo maanta oo xabsiga ku jiro waa may aniga Soomaan qofka wax lagu tuhmayso aniga maahan waxaas waxba kama jiraan aan qorina ma qaadanin waxna ma qaadanin gurigaas waa ka shaqeyn jiray cidaasna way isaacidi jireen wax kale oo naga dhaxeeyo ilaahay abuurtay ma jiraan
markaasaa waxaa lay dhahday allahu mustacaan okay habaryarta asiga ii imaaday wuxuu i dhahay habaryartaada hadalkeeda aan dil toogasho kuugu xukuma anigaana ku aqaan war habaryartay waa waalanta habaryartay qofiyo ma ahan habaryartay nafsiyaada hayso waxay dhahday waxaan isku dardaray habaryartay waxaan ahayn aan ka sheegay dhahday waxaan ahayn aan ku sheegay markaan dil toogasho iyo maxkamad aan maqlay waa argagaxa igu furmay waxay dhahday aday kuu taalaa waxaan ku jiray dhahday meeshii 8 maalmood aan meeshii aan ku jiray 8 maalmood aan meeshii aan ku jiray oo waxaa lay leeyahay maxkamadaada weli waaye maxkamad maalintii lagu rabo maxkamadda lagu soo taagaa maalinta maxkamadda u balansaneed waxay dhahday maalinta ka horeysa ama maalinta kasii horeysa habaryar intay baxday waxay aaday UN-ka markay aaday dhahday UN-ka ay caloosheeda faashad inay ka qaaday maradii ay ka qaaday caleeshooda banaanka ay taalo meeshii maxay raadaasi UN-ka qoraxda seexatay waaw gabadheedu waa la dilooyaa gabadheedu diltoogishaa lagu xukumi rabaa gabadheedu waxaysan sameynaa lagu nabi rabaa gabadheedu waa waxay dhahdaa habaryar meeshii waxay ku gashay calaacal iyo qeyli iyo oohin ee isku dardartay caloosheedii ku feeday UN-kii dadka u shaqaynayay dadka mas'uuliyiinta dhanaa soo baxeen maxaa dhacay maxaasi gabadheedu diltoogishaa lagu xukumi rabaa maalin heblaay maxkamaday saaran tahay waxaa ka ogtihiin ma lahan maxaa United Nation ka tihiin maxaa inta ka tihiin hawaryar waxay dhahday oohin iyo wax walba calaacal iyo wax walba isku dadarsatay markaasaa waxaa la lahay hay sidee wax u jiraan wax noo sheeg saas wax u jiraan maalintaasna gabadheeda maxkamaday saaran tahay gabadheedan maalintaas maxkamaday saaran tahay gabadheeda maalintaas la xukumaaya maxay radaa si wax sameeya anisaana ahay ayda ii dhaqi jirtay ayda boogteeda dhaqi jirtay maantana waa kana meeq maalmood boogteeda mala dhaqin boogteeda mala dhayin waxay dhahdaa habaryar meeshii calaacal iyo oohin ee iskugu darsatay markaasaa waxaa la lahay khalaas maxay radaa si isdaji wax walba way hagaagayaan wadadaa la wacwacay abukaatiyaala la wacwacay dowladda aala la xiriiray waxay dhahday maalinta maxkamad laysoo taagay alxamdulilah waxaa abukaatiyaal qabteen UN-ka abukaatiyaal ii qabteen UN-kii alxamdulilah sidii maxkamad waxyaabo badana laygu weydiiyey waan sheegay dhahday wixii wanaagooda ah ani waxa wanaag waa ku aqaanay dhahday ciidaan oo waa cid isaacidaayeen habaryarteeda xanuunsan ayaga korontadii iyo biyaha xataa naga bixin jireen waxyaabo badan ay noo sameeyeen sidaas darteeda anima ciidaan waaba cid isaacidi jireen sidee waxooda u qaadana ciidaan waaba cid garab ii aheeda sidee aan waxooda u qaadana ciidaan waaba garabkeyga ciidaan waaba garabaybnoo ahayn sidee waxooda u qaadana almihii meeshii looyaradii abukaatiyaashii iyo wixii hadalkii la isku keenay alxamdulilah waa laysoo fasaxay ilaahay subxaana watacaala ma hadle marka laysoo fasaxay hadda naagtiisa soo dhow naagtiisa ama xaaskiisa waqtiga ay imaan rabtay soo dhawaaday markaasoo isoo wacay waa inaa imaadaa gurigaana usoo shaqo tagtaa waxaan dhahay ma imaanay ani shaqo marawi bes waay markaasoo wuxuu yidhi laazim waa ku qasban tahay inaad soo shaqo tagtid waa ku qasban tahay inaa imaadid waa ku qasban tahay sida shalay u shaqaynaysay inaa maanta inaa u shaqaysid markaasaa waxaan dhahday ani ma awooday inaan shaqeeyo ma rabi inaan shaqeeyo ma rabi haddaadan shaqeyn wuxuu yidhi kawaa kaasiinaa kaw xaaskaygu way imaanaysaa wuxuu ka baqaaya dhahday xaaskiisa markay timaado inay weydiiso gabadhii maxaa ku dhacay maxay la baxday ileen ani fasax le siiyey maxay ku baxday mushaarkeedana waa u socdaa ma ahan qof yani beenbeen ku bixayso qof oo fasaxna waa tahay mushaarkaagana waa ku socdaa diidaay ma jirto hadday weydiiso wuxuu diidaa wuxuu kaga jawaabo ma haayo marka saas darteeda wuxuu leeyahay waa inaan kusoo noqotaa shaqada haddaadan kusoo noqonin wixii kugu dhacdaa isku keenay laazim shaqada waa inaan kusoo noqotaa marka waxay dhahday dadkaasna waxay dhahday qofkii ay rabaan maalin kuma qaadato way keenayaan oo asoo meeshaas soo yaala la dhahay la arkaa yani asoo meyd meeshaas soo yaala asoo la dhahaa la arkaa wixii dili xitaa lama ogaanaa bes waxay dhahday anigii ma soo noqon karay dhahday habaryar maxaan sameynaynaa meeshaan waa iskaga tegaynaa meeshayna u noqonaynaa qabowgeeda ha iska ahaaday dhahday meeshayna iska aadaynaa waxay rabta ha iska ahaato meeshii aan kasoo guurnay kow oo qabowga darteeda habaryar loogu soo waday ee sancada aheed sancadii u noqonay dhahday sancadii telefoonadii waa wada bedelanay waa ku qasbanaa inaan wada bedelno gurigii habeenimooyaa ka cararnay waan baxnay meeshii aadnay alxamdulilah meeshii markaa aadnay telefoonadii iska bedelnay habaryar qabowgii dabcan wuu dhibaayay habaryar qabowga ma u dul qaadan karin habaryar qabowga waa waxay kasoo carartay habaryar si ziyaado ahay u xanuunsatay habaryar xanuunkeeda wuu ku ziyaaday habaryar anoo ujeeday dhahday jawaahire waxay ku dhimatay dhabteedii ku dhimatay habaryarteeda dhabteedii ku dhimatay
waxaa laga yaabaa qabowgaas inay xamili weyday, qabowgaas inay u dulqaadan weyday, maadaama ay boogteeda ay furan tahay, maadaama qof operatiano ay gashay ay tahay oo boogteeda oo mandhiciri iyo wax laga saaray oo boogteedana banaanka ay taala ay tahay, laga yaabo hawadii inay xamili weyday. qof bili aadan dartiisa ugu soo cararnay dhahday oo meesha deegaankeena iyo daawadeena markaas hawreer ugu jirtay. فالحمد لله ورتي ربي ويماتي ودعي لها إلهي سبحانه وتعالى جنة الفردوس الأعلى ربي سبحانه وتعالى هكا ورابيو marka waxay dhahdaa hawreer ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto way dhimatay dibkaas aan naga soo gaaray runtii. waxay dhahday carabaha waxyaabo badan aan laga la kulmay, waxaa jira qisooyin badan oo dad oo markaas goobjoog u ahaa ku dhaceen, waxyaabo badan kale leedahay abaay ani ugu dhaceena jiraan oo dhibaato badan aan la kulmay. marka waxay dhahday inaa fariistaa jecelahay dhahday insha Allah marna waa idin soo fariisin doonaa hadduu ilaahay subhanahu wa ta'ala raali ka noqdo. marka hadduu ilaahay subhanahu wa ta'ala raali ka noqdo marka Allah mas'aan laftigay barnaamij cusub bilaabi raba, laakiin insha Allah ta'ala ma aqaan ku fikiraya oo dhiirigelin ah oo waxyaabo badan biidna Ilaahi al-Kariim aan raba inaan bilaabo insha Allah. marka dalkeena uu burbursan yahay, wiilasheenana dhalinyarteena ama nimankeenan anagayna sii burburinayaan. kaliya ma ahan waxay burburiyeen dalka, dumarkiina way burburiyeen. ma ahan in yani nooma qirsanamiya inaan nahay dumarnimada nooma qirsanamiya, inaan caruurtooda mas'uuliyad ka nahay, hooyo aan u nahay nooma qirsanamiya. ma aqaan intaasna way qirsan yihiin dabcan ilaahay subxaanahu wa ta'ala mas'uuliyadaas inoo saaray, ilaaha dumar inaga dhigay alxamdulilah. marka maanta dalkeena iyo dalka shisheeye carabaha dhibaatadan aan kala kulanno markii la isku fiiriyo ama la isbarbar dhigo, dalkeena qurba ah, dalkeena xornimo ku haysanin. carabaha sax way dhib badan yihiin oo carabaha waxyaabo badan lagala kulmaa, laakiin waxyaabaha dhib dalkeena aan kala kulanno صراحة heerkaas heer la eg kala ma kulanno. marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala dalkeena ha noo hagaajiyo. dalkeena adinka mas'uulka ee ragow waa u jeedin dhibaatada nin ragoo ficiina ama nin ficiina oo ajaanib ah dhibaatadaas inoo geysanayo, adinkiina waa noogu sii dareysaan. marka ma anfacayso insha Allah ta'ala. isku daya in aan noqotaan kuwa dumarkooda u tura, isku daya in aan noqotaan qof kuwa oo dumarkooda u naxariista, kuwa dumarkooda ihtimaam siiya mar walba ka walwala, kuwa dumarkooda oo waxyaabo badan u qabto. ragga Soomaaliyeed oo markii wada ay kula marayaan xataa dig ka cararayaan, qof ajaanib ah wada markaa taagan tahay highway oo kale ma rabtaa inaa gudubtido ku leeyo ku gudbina soo bax. marka naxariista waa la isdheeriyahay, naxariis ma lihidiina. isku daya inaa naxariis ay yeelataan, inaa mar walba noo naxariistaan isku daya insha Allah ta'ala. hadda adinka noo naxariisan lahaydeen waxyaabahaas oo dhan dad ajaanib ma kala kulmi lahayn, anaga waxaan noqon lahayn kuwa oo maxay radaasi oo mar walba dadkooda iyo dalkooda qiimo ku lahaan noqon lahayn. hadda Nigerianka oo kale ayago waxa laga yaabaa nin Nigerian inuu gado gabar oo walaashiisa inuu gada laga yaabaa, laakiin xadgudub ma u yeelay, laakiin inuu beeciyo way dhici kartaa. ma fahmaysiin? bal fiiriya, laakiin qof hadduu xadgudub uu ku sameeyo intaas soo jibina. marka dumarka qiimahaas ay dadka la leeyihiin, adinkana qiimahaas inoo yeela, qiimo inoo yeela. haddaa xunnahay adinkana wanaajin karo, haddaa wanaagsannahay adinka idin wanaagsannahay. ma jiro dadan xumaanayna ma jiro. haddaa xunnahay dabcan idinkana wanaajisan kara, wanaajisan kartiin. ma aha inaa nasii dulmisiin, ma aha inaa oo cadow shisheeye aan noo balaqdaan. yani dumarkiina waa dumarka dumar aad u qurux badan, waa dumarka ugu nadaafada badan, waa dumarka loogu jecel yahay midab qurxoon oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala siiyay. billahi calaykum nicmadan ilaahay idin siiyay ka faa'iideysta, sidaas ma ahana isku xishooda. المهم قاري عافمات إبرواقا إذا رجينا waxaa idinku codsanaa subscribe share like comment haddaa awoodaan, haddaadan amoodin khayr iyo caafimaad iyo barwaaqo aa idinku ogahay insha Allah ta'ala. waxaa kaloo idin dhahaa Allah musta'aan ala ma yasifuun. Allah musta'aan ha dadka cusubna waa soo dhaweynayaa qalbi furan, indha waaweyn intaba idinku soo dhaweynayaa gacmo furan. aadan u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.